magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena Soomaaliyeed ayaa waxaa ka socda kulamo ku saabsan ka qayb qaadashada haweenka doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ee la filayo inay dhawaan dhacaan. waxaa magaaladaasi lagu soo gabagabeeyay tababar loo qabtay haweenka deegaanadaasi ku nool ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka dhawaan la filayo inay halkaasi ka dhacaan. warbixin arrintaas la xiriirtana waxaa Dhuusamareeb inooga soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed. مفتي يا أخويا هنيلي لعبوانيو برميلتي يبا معلمتي وحباري هويو أديقا مناشلي هويو أديقا مناشلي. tababarkan oo soconaya muddo 3 maalmood ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana soo qaban qaabisay isla markaana agaasimaysay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona loo qabtay haweenka doonaya inay ka qayb galaan siyaasadda dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan kuwa doonaya inay ka soo muuqdaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee cusub kuwa oo la diyaarinayo soo xulistooda. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kan Galmudug. ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle waxa uuna ka warbixiyay doorka haweenku ay ku dhex leeyihiin bulshada iyo kaalinta kaga aadan inay ka qayb qaataan siyaasadda. waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay in lagu garab siiyo haweenka ka qayb qaadashada hanaanka dalka lagu hogaaminayo. fursado badan ayaa leeyihiin oo heer state ah xildhibaanadii tahay iyo wasiiradii tahay ilaa heer agaasime ilaa ku xigeenno gobolkaad wax ku leedihiin degmada wax ku leedihiin deegaankaad wax ku leedihiin marka intii la idin aqooni lahaa inaad aqoonsi wax ku yeelataan ogaataan waxaad ka hesheen wixii idinka maqnaada raadsataan xaq baad u leedihiin. waan soo dhaweynaynaa si hordhaca inaad fikirkiina iyo waxaad fagaaraha la tegi lahaydeen aad hore usii qaadataan hana ka badbadinino wixii aan leeyihiin keliya raadsada haddii aan la yidhaahdo baryahan waxaan dareemaynay waxba ma hayno gabdhuhu leeyihiin wax waad haysaan laakiin wixii idinka maqan insha allah ma jiro kaalin aanan ku jirin ma jirto laakiin meeshii aad rabteen inaad ku joogtaan ayaanan gaarsiisanay waa la idiin qiran yahay odayaalka waa la hadasheen dhalinyarada waa la hadasheen marka waxaan leeyahay haddii aad intaas ka bacdi maryaha sii babisaan allow aan la dhihi gabdhuhu way ka badbadiyeen kaalintiina inaad qaadataan annaguna aan idinku garab istaagnana diyaar u nahay. dowladda noo dhismaysa mid lagu guulaysto oo gabdhuhu hormuud ka yihiin allah ka dhigan leen. kulay anigu degmadan joogaaye kala bar degmada in gabdha laga dhigo diyaar u ah. waxaan ogaa doontaan markii heerkeeda la gaaro broseska degmada isagoo socdo yaa midkii Galmudug waxa weeyaan sida tan loo bedelay marka degmadu waa soo socotaa teedu markii hadda state-ka laga baxo diyaar baan u ahay in ummadda tartan loo qabto oo ninkii musharaxa la ogaado golo deegaan la dhiso. waxaan sheegayaa huriya been maalintaas aad ku tegaysaan marka waxaan leenahay hore u socda haddii alla yidhaahdo kulankan inaan ka soo qayb galana waa ku faraxsanahay. waxaan leenahay si guud gabdhaha kaalintooda hala siiyo ayaguna intii ilaahay ugu talagalay sadaafi. xildhibaan Canab Maxamed Cusuble oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug isla markaana ka soo qayb gashay tababarkan 3 maalmood soconayay iyo sidoo kale xildhibaan Yuusuf Xasan Gacal oo isna ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen haweenku doorka bulshada ay ku dhex leeyihiin gaar ahaan dhanka siyaasadda marka ay noqoto. waxa farxad weyn ah inaan la soo qaato waqti 3 maalmood ah gabdho yar oo aqoon-yahano ah iyo maamooyin iga daba dhow oo anigu ugu weynaa dadkii meesha joogay in aan aad iyo aad u ogaaday maanta inay Galmudug haddaan anagu tagno waqtigii waa tagay wax yar ma dhiman haddii ilaahay nafta noo daayay dad jiilna bedeli kara oo aad u qiimo badan aqoonna leh firfircoon oo waxaan isleeyahay booski aad ka tagtay anaga gabdho badan oo ku bedeli kara joogo horta inaan la kulmo aad aan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay in madaxdayadii nagu matalaysa dowlad reer Galmudug badanahay
dowladda federaalka ay isku xilqaamayaan inay waqti walba iyo juhdi walba ay soo geliyaan inay nala joogaan cabdixakiin waa uga mahad celinayaa intaan halkaan joognay oo hawshaan ay socotay weli nagama uusan faaruqin mahad gaaraan u celinaya waxaan rajaynayaa insha allah sanadka dambe inay soo saaraan xildhibaankan waa xildhibaan qaali ah wax badan aan meeshaan ka faa'iidnay waxaan u sheegnay gabdhaha yaryar wixii caqabad lagu noqday 4 sano ka hor markii aan xildhibaanka soo noqonaynay iyo caqabada cusub oo iyadii soo laabatay waxaan sabarnoon aad uga mahad celinayaa wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya haweenka iyo state house-ka galmudug wasaaradda haweenka genderka in iyo macalinka fududeynaya nin aad u firfircoon oo qalbi fiican ah inkastoo reer Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu reer galmudug noqon doono in ay noo sheegeen wadadii aan uga gudbi lahayn caqabadaas oo aan wax badan uga faa'iidnay waxaan rajaynayaa in caqabadihii gabdhaha yaraan u gudbinay ayagana qalbigooda oo aad markii su'aalo badan laga weydiiyay macalin fiican oo ah Mustafa wuxuu weydiin jiray mar walba wixii shalay la soo qaatay waxaan aad ugu bogaadinayaa gabdhaha yaga inay aad u maskax fiican yihiin oo ay ku soo celinayeen barnaamijkii shalay ay barteen uusan ka lumin galmudug waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waa meel dadkeedu aad u firfircoon yihiin dadkii dowladnimada Soomaaliya iyo xorriyadii dumar iyo ragba keenay ayaa ka dhashay madaxda Soomaaliya ku matasha hadda madaxda sare waxay ka soo jeedaan galmudug waxaan rajaynayaa gabdhahan yaryarna inay iyagana iyo wixii la mid ah in ay noqon doonaan inta naga maqan iyagu ay sii gaarsiin doonaan si ay u bedelaan madaxda maanta joogta waa wada rag waxa lagu matala Soomaaliya waxaan rajaynayaa in idinkana noqotaan oo aad bedeshaan idinkoo dumar ku matala insha Allah waxaan isleeyahay war ku dhaqan uma jiro ma macanab gadaasheed warkii waa dhamaystirtay kulli anu waxaan rabaa inaan maaragtay si dhamaystiro muhiimadda dumarka markii la yiraahdo Soomaalidu waa xoolo dhaqato waa dad xoolo dhaqato ah oo reer guuraa ah oo reer miyi ah nolosha miyiga markii la joogo hooyadu waa asaas inta bulshadu ay tahay ay yihiin hadda kor waxaan soo arkay deegaankan galgaduud ayaa laba qabiil oo qaraabo isku dhacay nabadeyn baan u aadnay saacado badan baan ku luminay waa kala celinay waa kala waxaynay wixii waa kala control weynay gabdhaha ayaan u soo biiray gurmada ciidan dhan oo 100 dhan oo la hadlaynay waxba aan ku kari weynay gabarta ku boodi wiil qori ka qaad dhammaan gabar walba wiil bay qabatay qoriga ka dhigtay nabadina maalintii waa loo umka ana ku yeelaan waxay ahayd great example bay ahayd marka gabdhaha waa dhiiri gelinaya waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa waan garab qabanaynaa laakiin ayagana waxaan ka rabaa inaysan gooni bulshada iska saaranayso iska dhigin horta qabiil gooni ah iyo bulsho gooni ah qodob inay mataqaanaa ragga ku soo biiraan wax la wataan weelka la walaaqaan annaguna waa garab istaagayna ilaahay idankiis waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo walaashay Shukri dadaalka iyo juhdiga ugu jirto arrimaha gabdhaha wiilasha ruuxda gacan qabata laga rabo Shukri waxa weeye dadaalkaadu waa badan dadaal dhamaystiran waa complementary aad iyo aad ba mahadsantihiin xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya munaasabadana ka soo qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay ka qaybgalka siyaasadda iyo doorka haweenku ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliyana ay ku jiraan gabdho firfircoon kuwa oo kaalintooda ka soo baxa ka qaybgalka siyaasadda iyo gabdhaha doorka ay yeelan karaan siyaasaddu waxay la mid tahay arrimaha kale ee mujtamaca gabadha marka ay soo tarbiyeyso cunuga ay caloosha ku soo qaaday ee ay dhashay ee ay korisay ee iskuulka la geeyay ee inta aan ognahay inaga waxa waaye odaga markuu habeenkii qaylada cunuga markuu maqlaba isgedinaya ayada dhabta ku haysay aan dareemaynin culayskiisa iyo maaragtay xilligu ku soo kacay iyo adeegiisa aynan culays ku ahayn hooyada inta markay ka soo gudubto oo ay soo tarbiyeyso ay soo diyaariso oo iskuulka aado ee uu ka soo baxo uu mustawo waxbarasho iyo mujtamaca inuu wax la wadaagi karo uu soo gaaro waxa weeyaan de wax oo la qiyaasi kara ma dhinacaas dhinaca siyaasadda waxaan filayaa gabdhaha hadda ka tirsan baarlamaanka federaalka ama siyaasadda dowrka kule ee ka dhex muuqda ama ka tirsan baarlamaanada heer state number ku jira anigu waxaan rabaa inaan xooga saaro tarkiisiyo taaqada ilaahay gabadha geliyay iyo awoodda ay leedahay iyo mujtamaca dowrka ay ku yeelan karto kaliya inaan lagu soo koobin kootada inaan lagu koobin waxaan aaminsanahay inaad gabdhaha de majaalaadkan kaleeto ma dhinacyadan kaloon ka sheekayno dhan marka ay ku fiican tahay waxaa qasaba inay ku fiicnaan karto dhinaca kale tusaale ahaan
gabadha baarlamaanka ku jirta ee xildhibaanada ah waxaa laga yaabaa inay dareemi karto baahida mujtamaca iyo dadka iyo meeshay ka timid iyo adeega ay u baahan yihiin inta uu ninka dareemay in ka badan waan hubaa 100% inay ka dareen badan yihiin ka qalbi nugul yihiin uga naxariis badan yihiin ka warhaynta uga badan yihiin nooga badan yihiin annaga aan huba gabdhuhu inay sidaas ku sifaysan yihiin deegaanada Galmudug ayaa haweenku waxay yihiin kuwa ku firfircoon isla markaana qabsada kulamo kala duwan qaarkoodna wacyigelin ay bulshada ugu sameeyaan waxayna hadda doonayaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda iyo sidoo kale ka mid noqoshada baarlamaanka Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuuso Marab.